kulanti wanaagsan bahda ku xiran kulmis media waa markale iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa dayaxda nuursho oo ka hadlay arinta lagu baahiyay social media ee ah in ay kala tageen xaaskiisa Farxiya kahor intaan ka hadlayn qoraalka uu bartiisa Facebook soo dhigay waxaan idin wadaagaynaa waxa lagu haysto alfanaanka caanka ee dayaxda nuursho haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqtay channelkeena waxaan ku leeyahay ka mid noqo asxaabta ku xiran kulmis media si aad u noqoto update oo aad ula socoto wixii cusub الفنان dayaxda nuursho waxaa baraha bulshada loo geliyay in ay kala tageen xaaskiisa Farxiya oo uu ka raacay gabar caanka ee barta TikTok oo lagu magacaabo Cayuuni dad waxaa jiro kala tago u yahay farxad sidoo kale waxaa jiro dad jecel qofka marka uu caan yahay inay arkaan qofkaas oo dhibaato ku jiro bini'aadamka qaar waxaa dhibto farxadda uu ku nool yahay qofka ama reerka isku faraxsan haddana ku soo dhawaada qoraalka uu soo dhigay alfanaan dayaxda nuursho oo dhameystiran assalaamu calaykum dhamaan waad waalateen waliba xadka ayaa dhaafteen dhammaan dadka beenaalayaasha Farxiya ma aan xaaskeyga oo kaliya ee waa caruurteyda hooyadood kaliya intaas ma ay waa saaxiibtay waa taladeeda waa nolosheeda waa farxadeeda waa go'aankeyga koowaad cidna si gaar ah uma ataagay balse faraha kala baxa arrimaha aniga iyo xaaskeyga dadka waaweyn ee YouTube-yada ku soo qoray Farxiya dayax baa kala tagay ama gabar kale la guursaday waxba uma dhimayo gabadhaas islaameed iyadana faraha ka qaada beentana ka daaya fadlan intaas kadib Farxiya waxaan ku doortay aqli aqoon karti go'aan xishood afgaamni deganaan qaabka kalsoonida wajigeeda ka muuqda intaas bay ila nooshahay maalin codkeeda maqashay idinkuma jiro dhamaantiin gabadhaas waa dayuurad aan baalasheeda cod qaban kartaa jirin Farxiyana heerkaas la meeso ee nolosha ay ku nooshahay iyo guriga ay ku nooshahay waxaa looga yeeraa boos oo macnaheedu yahay mudanaha thank you daawade markale waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe dhado channelka oo like saarto muuqaalka kulanka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah Salveta yan laga bojenin